sarkaal sare oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada maamulka Soomaaliland ugu magacawnaan jiray gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa maanta si rasmi ah uga soo wareegay maamulka Soomaaliland isagoo u soo wareegay dhinaca shacabka gobolka Cayn oo uu sheegay inuu la mowqafiyo siyaasadba yahay. sarkaalkani ayaa watay ciidan tirsigiisa lagu sheegay 250 askari iyo 12 gaari oo teknika ah oo gaadiidka dagaalka ah. Korneyl Axmed Maxamed Aadan oo loo yaqaano Dalbac ayaa waxa uu ka mid ahaa dadka farakutiriska ah ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kuwaasi oo la shaqeeya maamulka Soomaaliland. sarkaalkani ayaa maanta soo gaaray magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn isagoo ka soo kicitimay tuulada Maygagle oo 40 kiiloomitir dhanka waqooyi ka saaran magaalada madaxda gobolka Cayn ee Buuhoodle, waxaana sarkaalkani si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn. soo dhaweynta sarkaalkani ayaa waxaa ka soo qayb qaatay kumanaan dadweyne ah oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada Buuhoodle kuwaasi oo isugu jiray cuqaal, isimo, aqoon-yahano, culimo u diin, ururada dhalinyarada, kuwa haweenka, siyaasiyiin iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Buuhoodle. waxaana dadweynihii soo dhaweynayay sarkaalkaasi ay kaga hortageen tuulada Shangalle oo 5 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegeen magaalada madaxda gobolka Cayn ee Buuhoodle, halkaasi oo laga soo galbiyay iyadoo lagu soo horkacay boqolaal baabuura. sarkaalka ayaa soo dhaweyn kadib waxaa garoonka kubadda cagta ee magaalada Buuhoodle uu kula hadlay kumanaan ka mid ah dadweynihii ka qayb qaadanayay soo dhaweyntiisa. sarkaalka ayaa waxa uu sheegay inuu ka soo baxay maamulka Soomaaliland kadib markii ciidamada militaarka Soomaaliland ay xasuuq u geysteen dadka shacabka ah ee gobolka Cayn sida uu hadalka u dhigay, isagoo tilmaamay in xilligan uu ka qayb qaadanayo difaaca dadka shacabka iyo deegaanadooda. ciidamadaynu ba isaga baxno maamulka Soomaaliland difaacnana dalkayaga dhulbahante ee aan ka dhashay. Korneyl Axmed Maxamed Aadan Dalbac ayaa tilmaamay inuu ka qayb qaadanayo difaaca deegaanka Kalshaale oo hadda isku hor fadhiyaan ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo shacabka gobolka Cayn. sarkaalka ayaa waxa uu shacabka gobolka Cayn ugu baaqay inay difaacdaan deegaanadooda sida uu hadalka u dhigay, isagoo maamulka Soomaaliland ugu baaqay inay isaga baxaan deegaanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sida magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, degmada Yagoori iyo deegaanada Kalshaale iyo Hagoogane oo dhawaan dagaal ku dhex mareen Soomaaliland iyo shacabka Buuhoodle. waxaan ugu baaqayaa dhulbahante waxaan ugu baaqayaa inay dalkooda difaacaan, meelna ay uga soo wada jeestaan qadarada cadanka ee maamulka siinayo ayna ogaadaan tiknikada taalla Buuhoodle agaalkiisa iyo Laascaanood inay ay ku qabsadaan kaarabiinka tahay si kastaba ha ahaatee sarkaalkani ayaa noqonaya sarkaalkii ugu dambeeyay ee ka soo baxa ciidamada maamulka Soomaaliland kaasi oo ka soo jeeda gobolka Cayn, mana jiro hadda shakhsi u dhashay gobolka Cayn oo xilligan ka mid ah ciidamada maamulka Soomaaliland. Khadar Cawl Ismaaciil, Universal TV, Buuhoodle.